walaalyaal waa salaamantiin dhammaan marti sharafka golaha wasiirada inta fadhiya culimada diinta dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda dhammaantiin waa salaamantiin salaan kadib aad iyo aad inoo farxad gelinaysaa caawa arrintaa meeshaan iskugu nimaanay iyo supportiga aad noo muujiseen waxay noo kordhinaysaa dadaal dheeraada inaan sameyno waa mahadsantihiin inaadna aaminteen waa mahadsantihiin inaad mas-uuliyadna saarteen annaga waa idiin dadaalaynaa intii karaankeenu ilaahay nagu ogyahay sababtoo kitaabkii qur-aanka kariimkaan gacanta saarnay wixii xil iyo waajibnahay sida daacadda ilaahay ogyahay u gudan doonaa idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad nagu kala geli doontiin inaadna kaalmay doontiin meelihinka qaldanno iyo qaladaadkii oo aan sameyn aana cafisaan balse aana gubaabisaan oo aana tilmaantaan intaas kadib haddaan wax yar idinkaga taabtaabto wasaaradda howlaha guud intii dowladda jirtay waxqabadka ay samaysay iyo guulahay soo hoysay waxaa ka mid ah sidaa la socotiin wasaaraddeenu waa wasaarad badan oo isku jira wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska guryeynta gaadiidka badda dekedaha iyo tamarta wasaaradda tallaabooyin badan ay ka qaaday meesha ugu horeysa oo waddanka dhaqaalaha ka soo gala waa dekeda howl badan aan ka qabanay waxaa gacan weyna laga siiyey oo maanta inaa xusno mudan walaalaheena Jabuuti oo keeneen 2 taagbood hal wiish 2 forklift sida ogtihiin dekeda waa dakhliga ugu weyn oo soo galo haddana traffic-geedu wuxuu ahay jaam isku ahay marka si oo hawsha loo fududeeyo maraakiib badan oo badda waqti badan taagan hawsha loogu fududeeyo ilaa qarash iyo waxaa ku socdo walaalaheen Jabuuti gacan weyn laga siiyey waxaa kaloo farxad weyn leh in ganacsato Soomaaliyeed ay ka hirgeliyeen terminal containers oo dekedaha sida la wada socotaanba xafish iyo badda markii laga soo bixiyo oo markabka laga soo dejiyo badeecado dhan dhulkay daadsanaan jirtay wax badan khasaari jiray hadda waxaa maanta gacan weyn ka geystay ganacsato Soomaaliyeed oo sameeyay terminal container dekeda dhexdeeda taasoo guul weyn soo hoysay ganacsatadana ay aad ugu riyaaqeen waxaan hadda socdaal aan ka soo noqday walaalaheen Ciraaq 15 milyan ee noogu deeqeen oo lagu dhisi doono isbitaalka Laasareti oo cudurrada maskaxda معهدكي توبرك سيلم سيدا لسعودي شغالي هوسو أو دحى أما ما باور كان هذا وليتا وزارة الباهر قبضت كشغال كرمالها مرك معهد كاسوا ومعهد هذا مهم هناك وزارة لكن وزارة وطن وكذا حياة إيه وزارة اللي هو بس وزارة هولها ولا ليال قرب جوكتا جاليدا ganacsatada haweenka dhalinyarada waxa uu baaqay in wadankii gacan la siiyo wadankii lagu soo noqdo deeq iyo xoog la isku daro waxa uu qaban kartiin wadankii uu qabatiin waxa kaloo hadda shir ka qayb galnay sida loo jeediyay inta badan inta joogto dalxiis u imaanay shaqo ku jirnaa shaqadaas waxaa ka mid ah sida u soo jiidan lahayd dadka maalgeliyaasha ee rabaan inay maalgelin ku sameeyaan wadanka annagana waxaan usoo bandhigayay baahidana hayso taasna mudnaanta koowaad waxaa siinaynaa dadka muwaadiniinta marka ninkii wax haysto wadankiina kusoo noqdo oo maalgelin ku sameeya inta kale oo warka intiisi waqti badan ma haysto marka waxaan idinka codsanaynaa inaad duco iyo dadaal noogu soo dartiin hantidiina nagu deeqdiin kalsoonidiina buuxda la siisiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh